السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواده كيستا تي في magacaygu waa maxamed cumar channelkan waa channel u samaysan in uu kaa haqabtiro arrimaha teknolojiyadda isaga oo ku hadlaya afkaaga hooyo haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe dheh gambaleelkana riix si aad ula socotid videoyada kale barnaamijka maanta ayaa ah mid aan kaga hadlayno 3 telefoon oo ay iclaamisay ama soo bandhigtay shirkadda electronicska ee Samsung kuwaasoo kala ahaa Samsung Galaxy S20, S20 Plus iyo S20 Ultra oo ah kan ugu weyn uguna qaalisan abid arrinka telefoonada ayaan u kala qaadi doonaa 5 qaybood sida qiimaha bateriga kamerada shaashadda processorka network ay support garayaan haddii aan ku horeeyo dhanka bateriga marka la eego Galaxy S20 ayaa ka battery weyn hataa Galaxy S10 Plus ka halka Galaxy S10 Plus battery uu ahaa 4100 mAh taasoo ka dhigaysa telefoonada Android systemka isticmaala kuwa ugu batteriga weyn ayaa kor waxaa u dhaafay Galaxy S20 oo isagu batterigiisa ay geliyeen 4500 mAh sidoo kale waxaa la wadaaga batteriga S20 Plus ka labaduba waxaa isku fuuqsaday the big boy in the house Samsung Galaxy S20 Ultra oo isaga noqonaya boqorka cusub ee batteriga sababtoo ah batterigiisu waa 5000 mAh Samsung ayaa waxa uu jawaab uga dhigayaa arrinkan batteriga weyn Apple oo isaga hadda ku fadhiya jagadaas markii uu soo saaray iPhone 11 Pro Max haddii aan u weecanno dhanka kamerada ayaa Samsung Galaxy waxa uu ka dhigay Galaxy S20 iyo S20 Plus ka iyo Ultra kamerooyinkii ugu fiicnaa abid sida inuu ka dhigay 3 kamera oo kala ah 12 megapixel ultra wide ah 108 megapixel actually wide angle 48 megapixel telephoto intaa waxaa ku sii dheer depth vision camera oo ka caawinaysa picture-rada iyo inaad samaysid video bokeh leh waxaa kale oo uu suurtageliyay Samsung in mar qura uu ka dhigay telefoonada kuwa qaadi kara 8K videos taasoo ka dhigan markii ugu horeysay Samsung uu gaarsiiyo kaamerooyinkiisa heerkan oo kale ka rogo laba saar imikana shaashadda 3 telefoon ayaa jirin cid ku haysata xagga shaashadda iyaga oo noqday telefoonadii ugu horeeyay oo support garaya 120 Hz screen taasoo idin siiyo tusaale shaashadda iPhone-ka ugu qaalisan waxa weeye 60 Hz refresh rate-kiisa idinka oo aragteen sida ay u wanaagsan yihiin shaashadooda haddana markii aad scroll garaynayso ama aad ciyaaraysid game-ka waxaad ka dareemaysaa difference weyn ama kala duwanaansho processorada ayaa ah kuwii ugu dambeeyay oo uu soo saaro Qualcomm tirsigoodana yahay 865 waxayna sidoo kale ka dhigan tahay inay yihiin latest processor Galaxy S20 ayaa sidoo kale ah 128 gigabytes ama 128 gigabyte isaga oo ku siinaya inaad isticmaali kartid memory card ilaa 1 terabyte ah network ama qadka ay telefoonadan support garayaan ayaa ah 5G technology saddexduba waa isku mid arrinkan ayaa ka dhigan inay sanadaha soo socda hataa haddii kambanigaaga uu u guuro 5G technology aad tahay qof aan u baahnayn inaad bedesho telefoonkaaga si aad uga faa'iidaysato teknolojiyadda cusub ugu dambeyn waxa ugu muhiimsan waa qiimaha ay joogaan telefoonadan haddii maanta aan kaaga warramo wax aadan awoodin micna ma samaynayso Galaxy S20 ayaa qiimihiisa wuxuu aweeyay $1000 S20 Plus waa 1200 S20 Ultra waa $1400 sidaad u aragtaa in telefoonadan ay soo bandhigtay shirkaddan qiimahaasi ka waran fadlan commentiga igu soo qor subscribe to the channel like and share the video ma mahadsantahay